marka saidin arka asxaabina la joogtaan in kala laagta noota taabta soo dhawaada waxaan rabaa inaan weydiiyo hooyooyinka horta hooyo nooceeyaa tahay hooyadeesa tahay adiga marka saddex hooyo oo saddex qaybood oo hooyooyinka kamid ah oo bulshadeena macnaheedu u badannahay waxaan rabaa inaan hooyooyinka ogaado hooyadee horta adiga tahay marka hadda ila joogtid please like tanoo taabo asxaabta kale soo noogu sii gaaro commentiga hoosan insha Allah way iga muuqan kartaan marka saddex hooyo hooyadee tahay hooyada koowaad waxa weeyaan hooyo ilmaheeda yaryarka maalintii markay soo kacday ay iska jarkeeda iyo waqtigeeda suu u yahay u soo qabato u nadiifisa ee diyaarisa ee cunadooda siisa ee wuxuu diyaarisa marka iyada waxaan ka hadlayaa ay gurigeeda joogto ka bacdina TV-geeda u daarto kadibna tiraahdo waa shaqaynayaa shaqaan qabsanayaan gurigan ka shaqaysanayaan laakiinse ilmahaas yararka waa inay TV-ga daawadaan iyo halka ay fadhiyaan intaan hawsheeda dhammaynayo hooyadaas markay hawsheeda dhamayso iyada soo daashay soo dhacday kadibna ilmahii oo energy ay hayeen dhamaystay maanta dhan TV-ga fadhiya ay kacaan guriga maanta dhan ka shaqaynaysa udama maraan hadhowtadina ay bilaabata dagaal iyo wardhig iyo war maxaa qaaday maxaa u wadaayay dhig oo waqtigii maxaan ku dhahaa daal iyo cilaalin haddana kaga dhamaado hooyada labaadna waxa weeyaan hooyada labaad iyaduna waxa weeyaan hooyada maxaan ku dhahay tiraahdo ilmahan maanta dhan ma cilaalin karo faraha ka qaado ama markay TV-ga daawanayaan hadhowta ku caajisaan waxayaan haddana maxaan ku dhahayto hadday ama meel ciyaar geynayso ama ciyaaraan ama waxayaan ama maanta dhan gurigii intay ilmihii kala carari kasto wax kastoo muhiim ama wax kastoo ilmihii gaarsiin kara dhibna maanta dhan kala cararto hadba meel kala saarto hadba meel maxaan ku dhahaa ka fogeyso celcelin iyo ay kaga dhamaato iyadana waqtigaas maxaan ku dhahay in ilmihii maanta dhan ka fogaato hooyada saddexaad ugu dambaysa waxa weeyaan hooyada tiraahdo waa shaqaynaynaa soo kaca ilmihii la soo gasho shaqadii waxaan rabaa ilmihii maxaan ku dhahay waqtigeeda xadido waqti ay jimicsigoodii iyo exercisekoodii ka dhigto waqti ciyaartoodii ka dhigto waqti yare kooban TV-goodii ka dhigto waqti ayadii la shaqaynayaana teamwork ay wada yihiin maanta dhan guriga inta ka shaqaynayaan shaqadii la qabtaan hadhowtadii markuu ilmo damcaan wuxuu ku shaqo jaamana tiraahdo hebel shaqadan waa shaqadan maanta dhan haynay see wax yihiin soo meeshan ka shaqaynayna maaha meesha arjina ku xismaysid halkaana leedahay ku ciyaartaa ciyaartaadu waa ku kana waxaad ku ciyaaraysay kuwa kow meeshaada marka adigu hooyadee taha saddexda hooyo taladaas aniga aan ku darsan doono insha Allah hooyada ugu fiican maxaan ku dhahay daalka nasato waa hooyada noocaasa hooyada daalka nasato wax u organic garaysan yihiin waa hooyada noocaasa ilmahaaguna biri kamaal wuxuu noqonayaa ilmo luuqadiisa hooyo ee Soomaaliga kula yaqaano fargeetada waxa dhaha kula yaqaano vacuumka waxa la dhahayo maxaan ku dhahay meesha lagu clean gareeyo kula yaqaano meesha weelka la dhiga yaqaano qaadada meesha la dhiga yaqaano saxanka meesha la dhiga yaqaano shayga muhiimka meesha la dhiga yaqaano shayga aan muhiimka ahayn meesha la dhigana yaqaano ilma ah buu ku noqonayaa ilmahaaga luuqadii hooyo ku baranaya TV-gii iyo maanta dhan wixii indhaha ka tirayay ee aan caafimaadka ahayna uu ka badbaadaya ilmo wuxuu noqonayaa hadlayo ee uusan hadalku ku yarayn laakiin TV-ga maanta dhan ilmahaaga markuu ag fadhiyo indhihiina baabah baad ka siiso indha la'aan baad ka dhigtay caqligiisii iyo maskaxdiisii iyo wuxuu ku fakari lahaana maskaxdiisu way xiran tahay intii badneedu halkaas u jeedaa uu daawanaya halkaasna wuxuu ka daawanayaa wax kooban oo loogu talagalay ilmahaas inuu daawado ama wax fiican ha noqdeen ama wax fiican aysan noqonba waxay doonaan ha noqdeen marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan weydiin lahaa hooyadee tahay adigu hooyadee tahay hooyo nooceeyaa tahay ma waxaa tahay hooyadaas waxaadii maxaan ku dhahayeeto u nidaamsan yihiin ilmihii ka naxday caafimaadkiisii ka naxday ayadiina chance ay hadhowtida ilmihii kula ciyaarta ama wax kula qaadata ama ku nasata ay heshay ilmihii markuu kaa seexdo hadhowtadiina wixii yaree mataqaanaa gacan maris u baahan cleaningkii waxyaalihii maanta dhan ilmuhu kula shaqaynaya marmarka qaarkood waa laga yaabaa hawshuu saa rabteeda si perfect kuu noqonaya aad wixii aad ka hadlahayd wixii aad bedeli lahayd aad bedeshid xilligii maxaan ku dhahayeeto ay ilmihii kula joogaan thank you for lacting asxaabi soo dhawaada si qaali
asaxdid hadhowtadii marka ilmihii kaa seexdaana gacanta marisid gurigii wax yaro mataqaanaa nidaamkiisii adigu aad markaa toosisid markii ilmihii kula joogayna maanto dhan ilmahaagii naxariis bay u tahay inaad maanto dhan ilmahaaga la hadlaysid saxanka dhig qaadada dhig aad leedahay ilmaha yare halka sano jiro wuxuu u yahay barasho ama 2 sano jiro ama 3 sano jiro ama 4 jiro wuxuu baranayaa luqadiisii wuxuu baranayaa maxaan ku dhahaa sida dad wax loola hadlo ilmihii maskaxdiisu way shaqaynaysaa waxbuu qaadaa waxbuu dhigaa waxbuu soo qabanaa waxbuu sii dhigaa waxbuu soo waxayna so ilmahaagii adigii wuu soconayaa hadhowtadii gurigaaga wuu kala yaqaanaa laakiin markaa maanta dhan ku haysid halkaa fadhi inta u soo dhaqdhaqday weliba hooyooyinkeena Soomaaliya dhibaatadaan leenahay ka mid tahay intaanu ilmihii nadiifino oo waxayno marka horena sokor iyo macaan ka badino oo aan cunno maxaan ku dhahay to wax macaana ka buuxaan aanu siino baa waxaynu leenahay ha fadhiyo haddii kale waa qalqaaliyo aad guriga u jajabinaya alaabta waa halaynaya wixiiba burburinaya haddii kale saa u fadhiyo haddaan meesha ciyaarta ku geeyo waa ciyaartay haddii kale fadhi guriga joogtidba hooyooyinkii wuxuu rabnaa inuu ilmihii soo fadhiyo de ilmihii ilaahay baa energy siiya adna sokor baad ugu darta energy uu cunayay oo saakash canjeelasha ugu darta oo maxaan ku dhahay to aani baa waxa laga yaabaa inaad sokor ugu dartid oo waxa laga yaabaa cunadaad siinaysa inaad sokor ugu dartid oo waxa laga yaabaa wax kasta oo macaan oo maxaan ku radaa baskuldo xalwad leh nacnaclo inaad ka kantaroorno ka yarayn haddana ilaahay baa marka hore wuxuu u dhariyay energy badan oo uu dadka yaryar kaga badan yihiin dadka waaweyn intuu ordi karo ordaya oo intuu wax jajabin karo wax jajabinaya oo qalqaalinimo u dhashay marka mawduucan hadda waxaan ku soo qaatay waxaan arkay gabar dhahayso macnaheedu waxay ka hadlaysay waxay dhahday hooyooyinka iyo ilmaha isoo tarbiyaya marka waxay dhahday gabar ii timaada walaalayaal ilmihiina maxaan ku dhahay Soomaaliya ay tarbiyaysto gabar ii timid baan waxaan arkay thank you about you welcome siqaali gabar ii timida ilmaheedii guriga dhan iga jajabiyay oo markuu guriga ii soo galeen maxaa yeelay ilmihii qalqaali buu ahaa bay dhahayaan ilmihii oo eeda ma iska laha ilmaha waxa iska leh hooyadu inay barto marka gurigeeda la joogto inuu ilmaha la shaqeeyo hadduu ilmahan gurigooda ka shaqeeyo uu yaqaano shay walba meesha la dhigo uu yaqaano shayga muhiimka uu yaqaano alaabta aan la taaban ee la jajabin ee lagu ciyaarin guri kale markuu taga ilmahaasi dadka raamayo maxaa yeelay hooyadii gurigaan hadaa adigu ilmihii guriga kusoo xirto maanta dhan uu fadhiyaysa u junjumayo ama TV daawani ama fadhiyo hadhowtadii wuxuu rabayaa hadduu meel kala tago wax ka duwan arko ama aad tahay hooyada kala cararto maanta dhan kor saar ka qaad kor saar ku jirta aad tahay hadhow markuu ardadadu waxoodii dhigtay ama ilmahoodii u yaqaaniin inuu waxaan meesha la dhigo hadhowtadii waxaa kugu dhacaysa ilmaha inuusan ku dhageysan uu dhaho waxaan wax igu cusub way because gurigeyga kama jiranin adigana dib bay kugu noqonaysaa marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan fikradda yar talada yarna la wadaago guriga ilmaha markuu joogo haddii uu haleeyo bar in la saxo koob haddii uu qaado ilmaha weliba markuu halka sano jiro oo uu soo horeysa ama 2 sano jiro waa daalaysaa waa run hooyaa tahay hawshana ugu badnaanaysaa waxaa laga yaabaa ilmaha yar weliba markuu arqaadaysa inuu sii jeclaado haddaad maanta tiraahid daa ha taaban wuu jeclaanaya maanta dhan kusoo noqonaya haddana waa kuusoo dabamara hooyaa tahay markaa daashid waxaa isku dayaysaa shaygina qaadida meel kore ka saartid ilmihii oo waxaad leedahay dee kan hal sano jiraayo waxa ma maqlayo oo mataqaana maanta dhan kusoo celcelinayo dee may dhegaysanayaan waan ku daalay baad dhahaysaa kor baad ka saari laakiinse isku day markasta oo aad energy haysid oo aad mataqaanaa fiican tahay ama aad ka qaadayso kor saaraysid inaad u sheegto tiraahdo shaygan hooyo halkaan uu leeyahay ma laga qaado daa mar walbana hooyooyinka waxaan ku dhiirigeliyaa kula hadal luuqadaada adigu aad leedahay ilmahaaga markuu yar yahay hadda xataa hadduu TV-ga daawado oo TV-ga luuqadii kale uu kasoo arkayo haddana luuqadaada ha ku yaqaano shaygan TV-gana kusoo arkay taadiina ha ku barto seebu taadi ugu baranayaa marka way hadda adiga tiraahdo fariiso oo halkaa ka keen gurigaan kalin garaynayaa hadhowtina aad tiraahdo see meeshaan tirtira usoo marta cagahaaga baa ku yaaleeday barkintaan qaadaa dhigteeday maanta dhan aad ilmihii la diristay soo dhibaato kale maaha iyadana maanta dhan adigina waa wareeraysaa waa isku soo noqonaysaan
dib badan baa kula kulmaysa soo marka taladayda ugu badan waxa weeye si qaari thank you abay laagtaada asxaabi laagta noo saara asxaabta kalena u gudbiya insha allah intaan hadlaya hadda turuur xawaan warkii idinkagala daarayba